intaan ka maqnahay waan mahagane manfaci hurdaba wayska maanacee hooyoy macaan mama aragtida. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله يقوانا السلامي وولاشين ليل لايف ستايل سرب وعن صون قضوا عن إلهي باهرت مركو هو الرئيس مهاد إسكالي أو إسكو كاني إنه وعف ما قبلنا مرلبات إن أنت كصوم وقضه يقول تلقلي ما أنت رنتي قسحن وبضم باروا إنه وحير كده ونو دعيو قفك يكون عضي قصدا مرويد بان أركي وحنك أركي سوشيال ميديا وآباء gabadhiisii 14 jira ay daco ay xirtay من في عنبوها عروتها سجى هستي قبل واتي دمتي حاس يا ها أسجى عنتلو عن جلده وكرنجي يا ولا يا أبي هو يبصقوها يا إنا لله وإنا إليه راجعون أبي هو يبصقوها صح 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 فيصل مع الشيخ فيصل ها صح صح ما تشبي ما تشبي شبت على النفط يا قبل دا دعوي سمية قبل مركه هو يدي نوادي متى أبينا ولا حير أصلاً أبي هو يوها إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه كورة ما قربها مركا واقرت واقرت صح Somali hays karabsato Somali hays aastato Somali hays caawiso gacmaha la is qabsado dalkeena Allah nagu celiyo dalkeena dadka joog gacmaha hays qabsadaan waa u jeedaa waxa maanta yaala ilmaha nagana lagu ma qabsan jirin dhibaatada taalo waxaan leeyahay waa waxan badan waxa maalin walba soo kordhaysa ama soo yeeraysa midba mid bay ka xanuun badan tahay midba mid bay ka daran tahay Allahu akbar wallahi ilaahayow boogaha noo dhay annaga oo dhan oo islaam ah waxa laala wixii islaam ah maalinba midaad maqashitii kale ka sii daran xalay ahayd xoogaa waa farxay waxaan ku farxay in Salmaan Yare loo helay guul u gaaray oo insha Allah biidnillaahi kariim mar dhow uu meel fiican tagayo haddana maanta maxaa ka soo dabayaartay murug ka xanuun badan ah soo dabayaartay iyadana oo ah aabe ay gabadhiisa xirtay oo waxa iiga sii darantaa hooyadeed mar hore ayay dhimatay waxaan leeyahay inanta yar baan la hadlayaa habar yar ilaahay qulubtaada ha qooyo ilaahay maskaxdaada ha soo celiyo habar yar ilmo yar baa tahay laakiin maalmaha kamid ahaba ayaad waxa dareemaysaa habar yar inaad waxa samaysay wax fiican oo saahayn inaad aabaha oo hooyo iyo aabe ku ah aad gaala gacanta u gelisid Sheekh Saciid ilaahay ha soo badbaadiyo gaaladana gacantiisa ha ka soo saaro ilaahayow rabbiyow raxmaanow boogaha noo dhay wallahi waa arrin xanuun badan aad bay u xanuun badan tahay qof kastana wuu dareemayaa ilmo yar yar oo hooyo ay sahaysan aabihii haysteena gaala ka xidhay waa arrin aad u xanuun badan dadow marka waa sidii ay gabadhii kala dhehasay waxaan rabnaa inaan dalkeennii aadno maalin walba qof walaalkeenay seefta ku dhacaysaa dhac Allahu akbar ninkii walaalkii loo xiiro wadna soo qoyso arrintii ahayd waay maalinba waa mid basaylada dhex yaala waxay ugu talagaleen inay awlaadayada gurtaan waxay ugu talagaleen inay diinta ka bedelaan ilaahayow noo hiili awood kale ma lihin awoodaada mooyaane yaa raxmaan yaa raxiim adiga ayaa awood leh ilaahay ha tuso ragga Soomaaliyeed oo dalkii burburinaya dhibaatada qurbaha ku haysata ilmahoodii iyo raggoodii iyo hooyooyinkii everyday safe kulul oo xanuun badan baa dhacays yay ku dhacday qof Soomaaliyeed ku dhacdo islaam ah because dambiga annaga leh because annaga u nimi meelaan ubadkaaga lagu qabsanayn baan joognay ilaahayna nagu beeray naga soo toosnay every morning schoolka markay aadaan waad walwalaysaa
haddaa aragtid mid wax yar caraysan waa inaad u yeerta weydiisaa tiraahdaa hooyo maxaa kugu dhacay today ma tahay okay today ma faraxsan tahay ma waxbaan kugu sameeyey ma waxbaa lagugu sameeyey because hadduu aado iskuulka isagoo caraysan wejigiisa wax ka dareemaysid waad baqaysaa agar way dhacdaa igu dhacdaa kasa walwalaysaa waxaad is leedahay allah telefoonkii soo dhacaba talo mayaga talo armaa lagu soo wacaa allahu akbar yaa rabbi yaa raxmaan ilaahu noo gargaar walaalaha Soomaaliyeed ee meel walba jooga ee community-da isku sheegaya waxaan rabaa inaan dhaho walaalayaal isu taga midooba inaan awlaadiina cadowga guran inaan waraabuhu guranin oo banaanka ku cuninin ilaahay ka baqa mid noqda ilaahay mid hayni ka dhigo quluubtiina allahay sukin xaaro kalkacal aan la xisaabi karin ilaahay haynu ku shubo qalbigiina Soomaaliyeed inta isku eegasaan qabiil isku buuraysaan qabiil awaraabihi ina ka dhargay tollaay oo tacabkayba midhihi jiran Soomaalidu tacabkeeni u khasaaraya we have to waynaan istaagnaa aan isku xiranaa qaybna way guranayaan iyagoo yarar bay guranayaan kuwii xitaa fiicnaadana oo wiilashana dayn maayaan qaybna waxay isugu dhibayaan xabad qaybna hadday rabaan jalas bay u dilayaan markuu hagaago ilaahay waxaan ka baryayaa awoodiisa sagaalehe in la arko Soomaaliya mid inaan aragno markaan shaqooyinka aado ama aan tagno guryaha baadida ama aan tagno warshadaha ajanibku ka buuxo qof Soomaaliya haddaan arko walaalkay ama walaashay soo farxad ma aha marka qof Soomaaliya aragtid ina faraxdid Allahu akbar ya rabbi ya raxmaan inugu daalin maayo hadalka walaalahayga aanu ducayno wadaadka ilaahay isagoo nabadaha ka soo saaro gabadhiisiina ilaahay quluubteeda ha ka saaro uqdaday u qaatay aabaheed ilaahay ha ka saaro quluubteeda ilaahay ha soo hadeeyo quluubteeda ilaahay waxaan ka baryayaa isagoo nabad qaba inuu soo baxo iyana ay soo noqoto insha Allah biidnillaahi kariim wa anigoo ah walaashin Layla lifestyle waa inay jeclahay walaalahayga midnimadu waa maguuraan inaan isjeclaanana waa maguuraan marka waxaan leeyahay dadka dalkii joogaan la hadlayaa please heshiiya nimcadii wadankii bay taalaa kuwa qurbaha joogowna midooba wallahi waraabuhu mayni ku soo degdegaya haddaa midowdaan laakiin mar intuu midba meel wax yar rabo inuu ku cuno community-a waxba ma hagaagayaan dhasheenina waraabaa cunaya gabdhigii iyo kulli ka sii daran marka ilaahay boogta haynoo wada dhayo dhaawac baa nagu wada yaalla everyday dhaawac baa dhacaya cunug yaraa la qaadanaya hadda mid weynaa la qaadanaya 14 jirkiina hadduu soo dhigtay awal kuwa yarar baan ka biqi jirnay kuwa waaweyna hadda kaba sii daran bade marka yaa rabbi allahumma aghfir li warham li yaa rabbi lahu dambigayga dhaaf iyo kii waalidiinkeena marka walaalahayga waan ka tagayaa hadalkayna ku badin maaye waxaan leeyahay like-ta iyo subscribe-ku waa xaqiina iyo share-ta insha Allah mar walba waxaan jeclahay wixii marka aniga niyadayda ay qabto inaan inii sheego oo ka qabto niyadayda runtii qurbaan jooga waan walwalayaa waan naxsanahay because ma ogid seefta qof ay ku dhici doonto marka xiga mar walba ducada waa xaqiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh